hubkii ugu horreeyey ee uu helay jeeshkii Nasrullaahi ee 63 dhaqdhaqaaqa hubaysan ka bilaabay gobolka Soomaalida ee Ogaden waxaa Muqdisho ka diray Generaal Daa'uud Cabdullaahi Xirsi oo ahaa taliyihii guud ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya iyo ku-xigeenkiisii Generaal Maxamed Siyaad Barre. hubkaas oo 180 qori ahaa waxaa sii qaaday oo xamar ka soo doonay Yuusuf Axmed Gaas oo ka tirsanaa Nasrullah. wuxuuna hordhac hubkaasi u ahaa 1500 oo qori oo dowladdii aadan Cabdullaahi Cismaan ay ugu deeqday jabhadda ama jeeshka. Soomaaliya lafteeda ka hor intaan Ruushku gargaarka militari u fidinin tabar sii weyn ma lahayn. hubka uu Talyaanigu ka tegay Kasakowna Masar ayaa siisay 5,000 oo qori. sida oo ay tahay haddana faanoole fare kama qodnayn marka aad fiiriso baahida hub ee uu qaran yeelan karo. Soomaaliya waxaa kaloo ay taagga hub ku caawinaysay kacdoonkii ka socday Baali iyo Sidaamo waa Itoobiya iyo dhanka kale dhaqdhaqaaqa gobonnimadoonka ee NFD. marka waddan isaga dhanba 3 sano jira oo sanadka saddexaad ku jira intaas oo jabhadoodna caawinahaya waad iska garan kardhaan inaan dadaal u yarayn. Nasrullaahi hubkii 180 ah 60 qori oo ka mid ah waxay u sii gudbisay reer Afgaab oo dhaqdhaqaaq hubaysan ka waday Ceelkari kadib markii bishii February ee 64 Itoobiyaanku ay dileen hogaamiyahoodii Maxamed Cabdinuur Dhaqane. xilligii dayrta ee 1963 jabhaddu waxay kor u qaaday weeraradii ay ku haysay Itoobiyaanka iyadoo marar badan dabagal ama ambush ku samaysay gawaadhidii ciidanka Itoobiya meelo kala duwan oo gobolka ah. Itoobiyaanka oo aan gaadiidka uga maarmin daabulidda ciidanka khiyaar kalena aan lahayn waxay bartilmaameed nugul u noqdeen weeraradii Nasrullaahi. Ilaahay ha u naxariisto dhammaan mas'uuliyiintaas iyo madaxweynihii iyo intii muslimiin